dilaacay gobolada bariga iyo galbeedka Soomaaliland gobolka Sanaag ayaa waxa ku dhinteen ka badan 10 carruur ah halka ay gobolka Gabiley ay ku dhinteen hal qof isbitaalada iyo goobaha caafimaadka ayaa qarka u saaran inay xidhmaan kadib markii sida ay wararku sheegayaan ay soo fosaartay dawo la'aan ka jirta deegaanadaasi isbitaalka guud ee magaalada Ceerigabo oo hore hay'adda caalamiga loo yaqaan MSF ay hore gacanta ugu haysay ayaa xaaladiisa laga deeriyay xilli ay xanuunka shubanbiyoodku ka jiro deegaanadaasi maamulka sare wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa amar ku bixiyay saraakiisha ka howlgala gobolka Sanaag inaan ka warbixin karin xaaladda caafimaad ee ka jirta deegaankaasi wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Xuseen Maxamed Xoob oo telefishinka caalamiga Home Cable TV dhowr jeer isku dayay inuu wax ka weydiiyo xanuunka shubanbiyoodka ee ka jira deegaanadaasi ayaa afka ka xidhay inuu ka hadlo arrimahaasi madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa xilliga ugu jiray ololaha doorashooyinka aqalka madaxtooyada Soomaaliland ayaa xilli uu safar ku tagay xorinta gobolka Sanaag ee Ceerigabo oo kormeer ku soo kala bixiyay isbitaalka guud iyo goobaha asaasiga ayaa waxa uu ballan qaaday in wax badan ka qaban doono isbitaalka magaalada Ceerigabo balse ballanqaadkaas madaxweyne Silaanyo uu ballan qaaday ayaan ogeyn halka uu ku dambeeyay Cabdirashiid Caynte Home Cable TV magaalada Hargeysa.